الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan isu dardaarmaynaa ilaahay cabsidiisa subxaanahu wa tacaala iyada azaad inoo ah iyada adduunyadana ina anfacaysa iyada aakharana sahay inoo noqonaysa in yar baan noolaanaynaa in ka badanna intaan aakhare iyo bacthi la gaarin qabriga ciid hoosteed baan ku jiri doonaa intii inaga horreysay dhimatay welina aakhare qiyaamo aan laysa soo saarin intay uunka gudi korkiisa joogeen waxaa aada uga badan intay ciidda hoosteedii iyo meeshaa ciriirigaa ku jireen halkaa ciriirigee la galo tolna kuma raaco maalna kuma raaco meel bannaan intaad uga qayshata laguu soo gurmadana maaha waxa wehel ku ah hanti iyo sahayna ku ah intaad ifka joogtay saad ilaahay uga cabsatay way marka cabsida ilaahay baynu mar walba isu dardaarmaynaa hadday tahay erey iyo afkeenna wax ka soo baxaya hadday tahay dhaqan iyo fal aan samaynayno hadday tahay qasad iyo niyad iyo go-aan aan qaadanaynaba intaba waxayna faran mudanna mar walba inaan isu dardaarannoon isxasuusinno ilaahay cabsidiisa inaan ogaanno ilaahay cabsidiisu waa erey kooban oo macno weyn culimmaduna markay si kale u soo koobaan soomaaliyeed ay soo ururiyeen waxay dhaheen wacdigu alla ka cabsi u isugu yimaadaan baab kastoo diinta oo lagaala hadlo hooriski iyo gunaanadkiisu iyo nuxurkiisu ilaahay ka cabso wey waajibkan sameeyo ilaahay ka cabso sunnadan sameeyo ilaahay ka cabso dembiga iyo xaaraanta iska daayo ilaahay uga cabso wax kastoo la isfarayna cabsi ilaahay buu xambaarsan yahay in la sameeyo wax kastoo la iska reebay ka tegitaankiisina cabsi ilaahay weeye axkaamtuna iyo nolosha qawaaniinta sharciga ilaahay u dejiyeyna jidkaa noloshee la socdo waxaana waa qasab ama way fiican tahay waxaasna waa mamnuuc ama waa laga fiican yahay intaas weeye intiisa badan intiina ilaahay cabsidiisa inay xaqiijisaa loogu talagalay intii faahfaahinteeda seen u fuliya haddaad tidhaahdana waa waxaa nabigana loo soo diray kitaabkana loo soo dejiyey diintabana loo keenay in saa dariiqaa u mari lahayd mid mid lagugu tilmaamo marka waa isu dardaarmaynaa ilaahina haynaga dhiga subxaana wa tacala haynoo fududeeyo cabsidiisa iyo dariiqiisana aan ku toosnaano ilaahay haynoo fududeeyo kuwii ka cabsadana ilaahay naga dhigo cabsida tilmaamaheedii waxaa ka mid a ilaahay wuxuu yidhi kitaabkan maa faradnaa fi lkitaabi min shay kitaabka waxba maanaan kaga tegin aad u baahnaydeen laakiin waxaa laga yaabaa imaanan xasuusanin ama inaan aqoonteeda yeelanin ama qaarkeed inaga qarsoomaa dhici karta si kooban aayaddan suurat alxujuraat ee aqriyayna ilaahay wuxuu ku tilmaamay qaacido kooban oo muslimku meel kasta ha joogo midab kastana ha yeesho magac kastana ha wato waxaa jira wax asaas oo ka dhaxeeya oo isku xira xuquuqda u dhaxaysana ay ka dhalato wixii la samaynaya wixii la iska daynba oo ah inay muslim ku walaala yihiin walaaltinimo kastoo iyada aan tixgelin oon ilaalinin waxba kama jiro ama abtir iyo dhalasho iyo qabiil iyo nasab ha noqoto ama midab iyo qowmiyad guud ha noqoto ama waddan iyo deegaan ha noqoto ama luqad lagu hadla ha noqoto ama dan iyo maslaxad kaleoo la isugu yimid ha ahaatee wax kastaba waa inaanay wax u dhimin inama almu'minuuna ikhwa muslimiintu waa walaala muminiinta iyagaa walaalo ah iyagaa walaalo ah warbixin maaha waa mabda axkaam iyo xuquuq leh weeye waxaa laga rabaa saa darteed inaad ilaaliso walaaltinimadu waxay keenayso oo dhan
oo wax inaad samayso u baahan iyo wax inaad samayso inaad iska ilaaliso oo iska dayso quraanka iyo sunnadu mabda'a waa la faahfaahiyey mar badan mar waxaa la yidhi waa in lagaa nabad galaa saa weeye muslimnimada walaaltinimadu mar waxaa la yidhi waa in adigu wax lagaa mudan yahay oo hiil iyo garaba wuxuu dooniba ha noqdo dhaqaale ha noqdo caqli ha noqdo xoog ha noqdo cilmi iyo aqoon ha noqoto waqti aad bixisay ha noqoto wax lagaa mudan yahay ood awoodana inaad samayso waxaan lagaa mudnaynna dadka aad ka ilaaliso intaa weeye islaamnimadu waxay keenayso walaaltinimadu ay tahay xuquuq badan baa ka dhalanaysa marka muslim ma dulmiyo muslim garabkii kama baxo muslim dhabarka uma duwo muslim saa kuma sameeyo muslimku saasuu ku leeyahay qofkii jiran buu booqdaa kii baahan buu wax taraa kanuu wax u sameeyaa wixii khaldan buu ka qabtaa dhammaan axkaamtaasoo dhan markaad akhriyaysaay waxaadun ka hadlaysaa walaaltinimadii inama almu'minuuna ikhwatun maxaa laga wadaa xuquuqdeedu maxay tahay taasi waa inay ka horayso ay ka weynaato waxa kaloo dhan wax kale dadku waa isugu iman karaan waxna waa ku dhex mari karaa laakiin xadka ay leedahay waa inayna tan jebinin waayo wax u dhimin wax kastoo wax u dhimayaay waa khaldan yahay oo inama almu'minuuna ikhwatun baa diidaysa qaybtan hore aayadda intaasaa laynagu farayo waxaa la yidhi ogaada walaalaad tihiin waddamo kala fog jooga waqti kala duwan noolaada midab kala duwan lahaada luqado kala duwan ku hadla abtir kala duwan yeesha waxaa lagama huraanka ah ee xarigga isqabsiga isku duubnaanta adduun ka bilowdaay uu aakharo tegayo waa iyada saa darteed ilaa aakhara laynoo sheegayo waxaa la yidhi allakhillaahu yowmaydin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin kuwa alla ka cabsi walaal ku ahaa maahane inta kale way isnacladi doonaan labadii isdhashaa kala carari laakiin labadii walaaltinimada islaamka ahayd way isweeshan aakharo marka naarta iyo jannada la soo saaro nin walba nin kale faraqa kugu dhowaa aabbe iyo hooyiyo laba isqabay kala cararayaan waxa wada socon doona waa tan xarigga haddaba aakharo taga adduunkana ka baxee xiriirka iyo iskalsoonaanta iyo wada socodka waa midka alla ka cabsidee inama almu'minuuna ikhwatun ahwaay kii haddaad fakiso mid meel dhow kaaga go-ayo oon qabrigaba kuu raacaynin qaladka aad u gashayna aad u qoran tahay aad wax ka dhigtahay waa sidii lagaa rabay si aan ahayn hadbana waxay kugu fogaan inta aad isku fogayso intaa marka laynoo sheegay qaybta labaadee waxaa la yidhi iyagoo dadku inta ay tahay walaalo ah waxbaa dhex mari kara labaa isqaban way isdhaleen way isu dhaxeen way wada dhasheen si kaley u wada dhaqmeen dan iyo duruufo kaley wadaageen duuyay wadaageen dan kaley wadaageen iyagoon waxba wadaagin baa wax la isugu yimid bay isku maandhaafeen maslaxaa kala geysay maan baa kala geeyey dadkaasi laba arrimood baa lagaa rabaa kow wanaaggooda ka shaqeeyo dhibka dhex yaalla islaax ka shaqeey ha isku dirin war xun ha u kala geynin ha sii kala dilin xumaata ha u kala sheegin oo marka sharcigu banneeyey inaad been allifto ood sheegto saad dhib laba muslima dhex yaalla u yaraysa ama u baabi'iso sharcigu wuxuu inoo banneeyey oo ajir lagaa siin qofkaad warka xun ka maqashay war xunood alliftay inaad ka geyso hebel saasoo fiican buu lahaa ad dhahdo tii runta ahaydna dembi baa laguu qoriyo waa ku dembaabi haddaad sheegtoo namiimaa tahay oo laa yadkhulu jannata namaamun janno ma galo deraderaabaad noqon tu beenood adigu alliftay ood geysayna ajri baad ka heli waayo wax ka weyn oo wanaaggii laysfaray baad xaqiijinaysaa sadeerta nabigu waa kile laysa alkadaabu biladii yuslixu bayna annaasi fayaquulu khayran aw yanmi khayran qofka wax wanaagsan sheegaya dad islaaxinaya beenaala ma aha xaaladaha beenta la ogol yahay bay ka mid tahay iyo xaaladaha runtu mamnuuca tahay dembiga tahay
wakunuu maca saadiqiina waxbaa laga soo reebay runta sheega run wanaagaa la ysfaray oo runtu waa wanaagsan tahay run dembi a maaha oo dad isku diro hebel baa ku caayayo hebel baa ku xamanayo saasuu ku lahaayo uu kuu soo hanjabayayo lama ogola haddaad kollaba war geynayso kanna war wanaagsan oo beena ka samee kaana war wanaagsan oo beena ka samee xiisaddii iyo xurguftiina ku dami markay heshiiyaan ha ogaadaan hadday rabaan warkaad u kala qaadee beenunu ahaa wanaaggii hadday heleen iyaga maxaa ka xuseeya adiguna ajir baad ka heli fidno walaalahana waad ku damin laakiin run dembi ah iyo been ajira tanba u qaado maxaa la yeelay waxaad fulinaysaa fa aslixuu bayna akhawaykum islaax iyo wanaajin heshiisiintooda ka shaqee markaad ka shaqaynayso bayna akhawaykum walaalo inay yihiin xasuuso waxaanaad dadaal samaynaysaay nin walaalihii wanaaggooda ka shaqaynayaa ta waa laba walaalaha labadii gacmood weeye wanaaggoodaa wanaag ku ah xumaantoodaa xumaan ku ah kala tagoodaa garab la'aan ku ah walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum baa ku haysata isku duubnaantoodiiyo wadajirkooduna xoog iyo walaaltinimo iyo garab iyo hiillu kuu yahay dadaalkaad samaynaysana ajir bay kuu tahay iyo aakhiro qaybta saddexaad aayadda waxaa laynagu faray xuquuqda walaaltinimo ee laysku leeyahay ee fara badana laydiin sheegay iyo islaaxinta iyo wanaag ka shaqaynta dhexdooda laydin soo faray ogow ilaahay ka cabsi bay u baahan tahay inaad ilaahay ka cabsato inaad xuquuqdii ilaalisana ilaahay inaad oga baqdaad u baahan tahay oo waajibkii haddaad dayacdana dembi ilaahay iyo ciqaabtiisa aad ka baqdo wixii dembi xaraama haddaad samaysana ilaahay inuu kugula xisaabtamayo ciqaab aad uga baqdo islaaxintii fa aslixuu lagu faray inaad xumaan ka sii dhaxabuurtana dembigeeda ka baqdo wanaagga aad qabanaysana ikhlaas iyo ilaahay dartii inaad ugu dhowaato camalka aad samaynayso xuquuqda aad ilaalinayso waajibaadka aad gudanayso wanaagga aad ka shaqaynayso alla ka cabsi kama maarantid qalbi nadiifaad u baahan tahay ilaahay inaad ugu dhowaanaysa inaad niyootaad u baahan tahay inaad ogaato alla ka cabsigii waajibka ahaa inuu yahay baad u baahan tahay intaa markaad samayso alakhillaahu yowmaydin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin kuwii muttaqiinta alla ka cabsay inaad gasho wey intaa marka laynoo sheegay waxaa lagu gunaanaday intaa haddaad samaysaan naxariista ilaahay baad helaysaan lacallakum turxamuun waxaad mudnaanaysaan in ilaahay idiin naxariisto ay fi dunya walaakhira adduun iyo aakhira adduunkana axkaamta ilaahay oo la fuliyo ilaahay oo si fiican looga cabsado iyo wanaaggaasoo la ilaaliyo naxariis baa lagu helaa aakhirana naxariistiisaa lagu helaa aduu maxaa kaloo rabtaya marka dariiqa naxariista ilaahay lagu raadiyo waxaa ka mid ah inama almu'minuuna ikhwatun fa aslixuu bayna akhawaykum wattaquu llah saddexdaa arrimood oo israacay baa naxariis ilaahay lagu gaaraa waxaan filayaa meel kastoon joognay wakhti kastaba naxariis ilaahay waana u baahannahay kamana maaranno iyadaanama intaan haysannana ku hellay intaan nool lahayna ku nool lahay ilahayna wuxuu inoo sheegay qur-aanka nabigiisa iyo muslimiintaba ku galladaystay inuu walaalo ka dhigay qur-aanku markuu soo degayey nebi maxamedna la soo diriyey sal allahu alayh wasalam carabtu qabaa'il bay ahayd xoolahay kala dhici jirtay wayna isdiri jirtay daaqsin iyo ceel bay isku qabsan jirtay way isku soo duuli jirtay haddana intii la is-afduubta weliba oo qoladii meeshan laga itaal roonaado baa la is-addoonsan jiray kii la addoonsadayna ama waa la adeegsan jiray ama suuq iyo sayladaha laga iibin jiray ama hadiyad baa la isu siin jiray ummad sidaas ahayd hadday soomaaliya ay qabaa'il la yahay oo daaqsin iyo deegaanno la kala sheeganayo oo haddana qabyaaladii la siyaasadeeyo kuraas lagu qaybsanayo oo qoloba qolo caydhsanayso oo caayayso diintii beddeshay carab ilaahay ku yidhi wakuntum calaa shafaa xufratin min annaari faanqadakum minha naar baad gebiga u saaraydeen inaad ku daadataan
ilaahay baa idinka soo badbaadiyey fa asbaxtum binicmatihi ikhwaanan baa ka horraysay nicmada ilaahay baad walaalo isku duubanoo wax wadaaga ku noqoteen ka horna naar baad qarka u saaraydeenoo qabaal iswada xamanaya oo iswada ximinaya oo iswada xoogaya oo xoolaha kala dhacaya oo xilaha kala boobaya aad ahaydeen dhiiggoodu xalaal u wadaya idinkoo sidaas ahaa baa ilaahay rasuul idiin soo diray oo diin idiin soo dejiyey oo walaalo idinka dhigay oo naxariis idinku siiyey oo naxariistiina aakharana janno ku raadiy ku helaysaan inta innagu aan nahay ee qabyaaladii iyo qabaa'ilka iyo saan u dhaqanno iyo si ka daran bay carabi ahayd kitaabkii bedelay baa ina dhex yaalla diintii walaalaha ka dhigtay baa inoo dhaxaysa marka ilaahay sooma mudna ilahay inaan uga baqno oon ilaahay ugu soo laabanno oo diintan walaalo ku ahaano oon xuquuqdii walaaltinimada ilaalinno oon labadii xumaan dhex marta walaaltinimo u heshiisiinno kuna gaadhna naxariista ilaahay adduun iyo aakhiraba waxaan filaya way mudan tahay ilaahay kuwii intaa sameeyana allah inaga dhigo ummaddeennana sidaas allah ku soo dabaalo allahuma inaa nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina اللهم لمنا رشدنا وعدنا من شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأقم الصلاة